بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة وناكسن واللحظة بشا فبراير سنة كالبكون لباتن يلح أو كوبهجن سيديد يتوانك بشا شعبان سنة كل أفر بقول فرتن يتضبع تاريخ ده هجرية ده كسو دوادا مركله يا برامج كي حول شدا ورركا ساكي قضبضة برامج كأن إذن كوها إنه وحاكم ده taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka oo si buuxda u shaaciyay in ciidankoodu diyaar u yihiin duulaan iyo difaac xilli dhiilada colaadeed ee ka aloosan bariga dhexe cirka ay ku shareeran tahay. wadahadalo lagu sifeeyay kuwa go'aamin doona halka ay u jihaysan doonto xaaladda bariga dhexe ayaa maanta ka bilaabanaya magaalada Masqat ee dalka Oman waxaana kulmaya wakiilo ka socda Iiraan iyo Mareykanka. madaxweynaha Iiraan oo mid ka mid ah saraakiisha ugu khibradda badan ee Sunniyiinta ka soo jeeda u magacaabay xil culus oo dhanka difaaca dalka ku aadan. Israa'iil waxaa ka taagan fadeexad weyn iyadoo dacwad lagu furay nin la dhashay madaxa laanta sirdoonka Shin Bet iyadoo loo haysto inuu caawiyay waxa lagu tilmaamay cadow xilli dagaal lagu jiro. Trump oo dalbaday in la diyaariyo heshiis cusub oo dhanka nuclear-ka ah oo lala galo Ruushka kadib markii uu burburay heshiiskii xakamaynta hubka waxgumaada. Turkiga iyo Masar oo bilaabay iskaashi military oo lagu farsamaynayo diyaaradaha droniska iyo agab kale oo ciidan gudaha dalka Masar tilaabo isha ay ku hayso Israa'iil. dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka internet si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. jimca mubaarag ayaan idin leenahay meel walba oo aad joogtaan. saaka waxaanu ku bilaabaynaa toddobaadkan waxaa si rasmi ah u burburay heshiiskii xakamaynta hubka nuclear-ka. waa heshiis u dhaxeeyay Mareykanka iyo Ruushka looguna talagalay in dal kasta uu la socdo waddanka kale gaar ahaan arrimaha nuclear-ka la xakameeyo tijaabadiisa la joojiyo hub dheeraad ah la soo saaro. arrintan waxaa la sheegayaa in hadda ay muujinayso khatar weyn oo tartanka hubka nuclear-ka dunida inuu ka dhaco. haddaba madaxweynaha Mareykanka ayaa war soo saaray aynaagna wararkii ugu dambeeyay amuurahani. madaxweyne Donald Trump ayaa xalay ku baaqay in la sameeyo heshiis cusub oo dhanka nuclear-ka oo lala galo Ruushka kadib markii uu burburay heshiiskii loogu magacaabi jiray New START oo ahaa heshiiskii ugu dambeeyay ee xakamaynta hubka nuclear-ka ee labada dal u dhaxeeyay. Trump ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada wuxuu ku sheegay in halkii la kordhin lahaa New START ay habboon tahay in qobarada nuclear-ka la faro inay diyaariyaan heshiisyo cusub oo ku saabsan in markaasi la xakameeyo hubka kaas oo ku wanaagsan heshiiskii hore. wuxuu sidoo kale ku eedeeyay heshiiskii hore inuu ahaa mid si xun loo soo gabagabeeyey isla markaasna la jebiyey oo sida dalka u dhigay. dhicitaanka heshiiska New START ayaa loo arkaa isbeddel weyn oo ku yimid xakamaynta hubka tan iyo xilligii dagaalkii qaboobaa iyadoo laga cabsi qabo in hubka nuclear-ka uu sii barto. si kastaba ha ahaatee shabakadda wararka ee Axios ayaa sheegtay in Mareykanka iyo Ruushku ay ku dhow yihiin inay gaaraan heshiis ku meel gaar ah oo lagu sii wado fulinta qodobada heshiiska inkastoo wadahadaladii 24 saac la soo dhaafay aysan keenin heshiis rasmi ah. taliska ciidamada Mareykanka ee Yurub ayaa sheegay in labada dal ay isku raaceen dib u bilaabista wadahadalo military oo heer sare ah. geesta kale afayeenka aqalka looga arrimiyo dalka Ruushka ee Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa sheegay in Ruushku diyaar u yahay wadahadal haddii Washington ay si dhismo leh uga jawaabayso soo jeedinta Moscow. Trump ayaa sidoo kale wuxuu doonayaa isaguna in Shiinaha lagu soo daro heshiiskan cusub oo lagu dhimayo hubka nuclear-ka laakiin Beijing ayaa ilaa hadda waxay diidan tahay inay ku biirto wadahadaladani. waa tahay bal markan aynu eegno
arrin weyn oo ay ku dhaqaaqeen wadamada Turkiga iyo Masar, Israa'iilna il gaar ay ku hayso. mashruuc ay si wada jir ah u fulinayaan Masar iyo Turkiga oo lagu soo saarayo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska, gaar ahaan nooca Hamza, iyo warshad lagu soo saaro rasaasta, madaafiicda fog iyo weliba qalabka agabka ciidanka ayaa waxaa la sheegayaa in hadda shaaca laga qaaday, taasi oo qayb ka ah iskaashi istaraatiiji u dhexeeya labada dal. iskaashiga Masar iyo Turkiga dhinaca warshadaha difaaca ayaa maraya heerar degdeg ah, iyadoo markii ugu horeysay labada dal ay galeen marxalad wax soo saar wada jir ah oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah, sida lagu sheegay war-saxaafadeedyo rasmi ah oo la soo saaray. gudoomiyaha hay'adda carabta ee warshadaynta ee dalka Masar, Sareeya Gaas Mukhtaar Cabduladiif, ayaa daboolka ka qaaday in heshiiskan lala galay shirkado Turkiya lagu soo saarayo dayuuradaha droniska ee nooca loo yaqaan Hamza, taas oo lagu farsamayn doono gudaha Masar. waxaana la sheegayaa in arrintan qayb ka tahay qaab dhismeedka iskaashiga istaraatiijiga u dhexeeya Qaahira iyo Ankara. Cabduladiif ayaa warbaahinta gudaha wuxuu u sheegay in hay'addu ay sidoo kale heshiis la saxiixatay dal Afrikaan ah oo loo dhoofinayo 20 dayuuradood oo noocaan ah, arrinkaasi oo muujinaya kalsoonida sii kordhaysa ee awoodda warshadaha wada jirka ee Masar iyo Turkiga, inkastoo aan la sheegin dalkaasi midka uu yahay. waxaa intaasi uu ku daray in heshiiska lala galay dhinaca Turkiga uu ku jiro bilaabista degdega ah ee wax soo saarka wada jirka ee dayuuradaha, isagoo xusay in labada dal ay si buuxda ugu heshiiyeen dardargelinta iskaashiga goobtan muhiimka ah, taas oo kor u qaadaysa awoodaha difaaca, isla markaasna muujinaysa xiriirka qotada dheer ee laba geesoodka ah ee Ankara iyo Qaahira. dhinaca kale, gudoomiyuhu wuxuu tilmaamay in Masar khibrad horumarsan ay u leedahay soo saarista gaadiidka gaashaaman ee dibadaha loo dhoofiyo, gaar ahaan wadamada Afrikaanka, kuwaasi oo ay ku jiraan gaadiidka caanka ee Fahad oo ay soo saarto warshada Qatar ee hay'addu ay leedahay, iyo sidoo kale 10 gaadiid gaashaaman oo nooca fudud. iskaashigan ayaa ka turjumaya isbedel istaraatiiji ah oo muuqda oo ku yimid xiriirka labada dal, kuna wajahan iskaashi dhammaystiran oo diiradda saaraya dhinacyada difaaca iyo amniga, halkii uu ka koobnaan lahaa labada dhinac oo keliya arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda. Arbacadii, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho rasmi ah ku tegay magaalada Qaahira, halkaasi oo kula kulmay dhigiisa Masar Cabdulfataax al-Siisi, isla markaasna ay kala saxiixdeen heshiisyo muhiim ah. heshiisyadaasi waxa ugu muhiimsanaa heshiiska qaab dhismeedka militari ee u dhexeeya dowladaha labada dal, waxaana kala saxiixay wasiirka gaashaandhigga ee Masar, Sareeye Guuto Cabdulmajiid Saqar, iyo wasiirka difaaca ee dalka Turkiga Yasir Gular. wasiirka gaashaandhigga Turkiga Yasir Gular ayaa sidoo kale Khamiistii shaaca ka qaaday heshiisyo militari oo ay Masar la galeen oo qiimahoodu uu gaarayo 350 milyan oo dollar, kuwaasi ay ku jiraan dhoofinta nidaamka difaaca hawada ee masaafada gaaban ee loo yaqaan Tolga, oo ay soo saarto shirkadda warshadaha makaanikada iyo kiimikada ee magaceeda loo soo gaabiyo MKE oo loo dirayo waddanka Masar. heshiiskan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah dhismaha warshad lagu farsameeyo rasaasta, madaafiicda masaafada fog iyo weliba rasaasta fudud, taasi oo si wada jir ah ay u dhisi doonaan dalka Masar iyo shirkadda MKE ee laga leeyahay dalka Turkiga, si loo daboolo baahiyaha ciidanka Masar loona dhoofiyo dalalka gobolka hubka halkaasi lagu farsameeyo. taasi waxay muujinaysaa baa la yiri iskaashiga sii xoogaysanaya ee u dhexeeya Turkiga iyo Masar. وهاجاك قدم قسال كاسين قدمنا وحنا قد بينا xiisadda bariga dhexe iyo wararkii ugu dambeeyay taliska dhexe ciidanka Mareykanka oo hanjabaad soo saaray wadahadalada ka dhici doona gordhow magaalada Masqad ee dalkaasi Cumaan. waxaan kaloo idin haynaa fadeexad weyn oo ka taagan gudaha Israa'iil. intaan u gudbin wararkaas aynu ku hakanno qadar xayeysiina qari online wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan Jimcaha toos idinkaga imaanaya istuudiyahayaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka.
warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa tahay markan waxaynu eegaynaa iyadoo xiisadda bariga dhexe weli ay cirka ku laran tahay ayaa waxaa la filayaa goor dhaweyto wadahadallo inay ka bilowdaan waddanka Cumaan wadahadalladan waxay u dhexeeyaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Abbas Araqji iyo sidoo kale ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe Stephen Witkoff arrimo waaweyn ayaa la isku hayaa Mareykanku waxay wataan ilaa iyo 4 qodob Iran inay joojiso gebi ahaanba barnaamijkeeda nuclearka gantaaladeeda inay sidoo kale dhinto masaafada ay gaarayaan ayna joojisaba soo saaris dambe inay joojiso kooxaha iska caabinta oo ay taageerayso iyo gudaha waddanka in wax laga qabto arrimaha xuquuqda aadanaha iyo xadgudubida si hadalka loo dhiga loo geysanayo dadka ka soo horjeeda nidaamka kacaanka islaamiga Iran waxay wadataa inay diyaar u tahay 20% uraniumkeeda inay dhinto laakiin waxa la yiraahdo inay eber ka dhigta aysan jirin ama zero waxay kaloo ku doodaysaa in horta aan laga wada hadli karin arrimo kale gaar ahaan arrinta gantaalada waxaa isaguna jira qorshe kale oo ay soo bandhigeen wadamada Turkiga iyo Qatar iyo Cumaan oo hindise kale ah oo u dhaxeeya labada dhinac wadahadaladu marka waa adag yihiin dabcan waa ka soo sheekeynay wadahadaladaasi wixii soo kordha iyo sida u bilowdaan iyo wixii ka soo baxana barnaamijka wararka maanta oo gordhow soo geli doona ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo iyadoo marka arrimahan ay taagan yihiin ayaa waddanka Iran gudihiisa madaxweynuhu wuxuu magacaabay waa Mas'uud Pezeshkian hogaamiye sare oo kamid ah hogaamiyaasha ugu sareeya Sunniyiinta hadduusan ahaynba ninka ugu darajada sareeya Sunniyiinta ee waddanka Iran aynu eegno warkan madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa u magacaabay Admiral Ali Shamkhani xilka xogayaha golaha difaaca ee dalka sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Faris iyadoo golahanna mas'uul ka yahay xoojinta diyaargarowga difaaca la tacaalida qataraha cusub iyo kor u qaadista isku duwidda go'aanada difaaca Shamkhani ayaa horay u ahaa la taliyaha arrimaha siyaasadda ee hogaamiyaha sare ee Iran Ali Khamenei waxaana sidoo kale uu soo noqday xogayaha guud ee golaha amniga qaranka muddo 10 sano ah wuxuu kaloo soo noqday wasiirka gaashaandhigga xilligii madaxweynihii hore Maxamed Khatimi warbaahinta Noor News ee Iran laga leeyahay ayaa sheegtay in magacaabistan ay qayb ka tahay isbeddello cusub oo dhisme iyo maamul oo lagu samaynayo waaxda difaaca dalka xogayaha golaha difaaca ayaa waxaa loo xil saaray dhisidda iyo sidoo kale maareynta xafiiska golaha dabagalka barnaamijyada difaaca kor u qaadidda diyaargarowga guud ee difaaca horumarinta farsamooyinka lagula tacaalayo qataraha cusub iyo xoojinta isku xirnaanta hay'adaha difaaca golaha difaaca Iran ayaa la aasaasay kadib dagaalkii 12 maalmood socday ee dhex maray Israa'iil iyo Iran bishii Juun 2025 si loo kordhiyo isku duwidda iyo waxtarka go'aanada difaaca Shamkhani ayaa ka mid ah xubnaha golaha tan iyo asaaskiisa isagoo matalayay hogaamiyaha sare Shamkhani asal ahaan waa Carab Iiraaniya kuna dhashay deegaanka la yiraahdo Ahvaz waxa uu soo qabtay xilal badan oo sarsare oo military iyo kuwa amni taasi oo ka dhigaysa mid ka mid ah taliyaasha ugu waaweyn ee ciidamada Iran dhanka Mareykanka markaynu eegno taliska dhexe ciidanka Mareykanka CENTCOM ayaa xaqiijiyay in ciidamadooda ku sugan bariga dhexe ay ku jiraan heegan sare isla markaasna diyaar u yihiin fulinta hawl kasta oo loo yimaado afayeenka CENTCOM Captain Tim Hawkins ayaa sheegay in ciidamo dheeraad ah oo Mareykan ah dhawaan la geeyay gobolka si ay u qabtaan hawlo gaar ah kuwaasi oo ay ugu muhiimsan yihiin ilaalinta ciidamada iyo danaha Mareykanka iyo la dagaalanka waxa uu ku tilmaamay haradigii ururka Daesh Hawkins ayaa sidoo kale ka hadlay xiisadda dhawaan ka dhacday badda Carabta ee u dhaxaysay ciidanka Mareykanka iyo drone Iran ay leedahay wuxuu Tehran ku eedeeyay inay qaadatay wasiirka u yiri dhaqan cadowtinimo iyo mid aan xirfad lahayn ah isagoo sheegay in daroontu ay ku soo dhawaatay markabka dagaalka ee Mareykanka Abraham Lincoln
kaasi oo ku sugnaa biyaha caalamiga qiyaastii 500 oo maylna u jirta xeebaha Iiraan. Wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanku ay droonta soo rideen talaadadii la soo dhaafay iyagoo adeegsanaya diyaaradaha dagaalka ee F-35 kadib dhaqdhaqaaqyo lagu tilmaamay kuwa shaki leh. Afhayeenka ayaa xusay in dhaqdhaqaaqyada ciidamada Mareykanka ee gobolka ay yihiin kuwa joogta oo loogu talagalay kor u qaadista heeganka, isagoo carabka ku adkeeyay in ciidamadu diyaar u yihiin hawl kasta haddii dadaalada dhanka diblomaasiyadda ay fashilmaan. Arrinkaasi oo loo qaatay inuu yahay hanjabaad toos ah haddii wadahadalladan ka socda magaalada Masqat aysan waxba ka soo bixin. waa hagaag haatan waxaynu qoransanaynaa qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka. Israa'iil gudaheeda waxaa ka taagan fadeexad weyn. nin la dhashay madaxa laanta sirdoonka Israa'iil Shin Bet ayaa waxaa leeyahay cadow buu taageeray. aynu eegno warkan iyo warbaahinta Israa'iil waxa ay ka qortay. xeer ilaalinta guud ee Israa'iil ayaa soo ogtay dacwad culus oo ka dhan ah nin la dhashay madaxa hay'adda ammaanka gudaha Israa'iil ee magaceeda loo soo gaabiyo Shin Bet, iyadoo lagu eedeeyay caawinta cadowga xilli dagaalka iyo falalka kale ee sharci darradu ay socdaan. Bezalel Zini oo ah walaalka David Zini oo ah madaxa Shin Bet ayaa lagu eedeeyay isaga iyo eedeysanayaal kale inay caawiyeen waxa lagu tilmaamay cadowga xilli dagaal, isla markaasna u adeegsadeen hanti ujeedooyin argagixiso, ayna heleen lacago si khiyaano ah iyo qaadashada laaluush sida ay sheegtay wasaaradda cadaaladda Israa'iil. dacwadda ayaa la xiriirta tuhun ah in sigaarka si qarsoodi ah ay ugu gudbiyeen marayka Gaza oo go'doon ku jira. bayaanka ayaa waxaa wasaaradda cadaaladdu ay ku sheegtay in badeecadahaasi la tahriibiyey ay ka mid ahaayeen tubaako iyo sigaar, kuwaasi oo la sheegay in 100 milyan oo shekel waa lacagta Israa'iil ay ka heleen qasnadaha Xamaas tani markii dagaalku ugu bilowday. waxaa sidoo kale la sheegay in askarta isgoysada la marin habaabiyey si alaabtan loo geliyay Gaza iyadoo loo ekaysiiyey hawlo amni. Zini oo ah askarta kaydka ee Israa'iil ayaa lagu tuhunsan yahay in 3 jeer Gaza uu geliyay ilaa iyo 14 sanduuq oo sigaar ah, isagoo helay baa la yiri qiyaastii lacag 365,000 oo shekel ah. dacwada ayaa sidoo kale waxaa lagu soo oogay dhowr qof oo kale oo lagu eedeeyay shabakado tahriibin ah oo ballaaran. madaxa Shin Bet David Zini ayaan weli wax faalaha ka bixin eedeymaha lagu soo oogay walaalkiis. waa hagaag qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa.